bal dhalinyarada inaa weydiiyaan jeclaan laha qaar badanoo malaha ku jira waa fadhiyaane tiktok maxaa laga faa'iiday yaa ii sheegi laga yaabay qaarkood inay xoogaa xoolaa laga helay inta xoolaha ka heshaayay waa naadir ma badnaa maxaa laga helaa waa waxa ugu badan ee laga raadiyo waxa weeye in uu ruuxu yeesho codka gaaban mikrofoonka wey aniga ma harmanin waxa inta badan laga raadiyo waxa weeye waa icjaab ruuxa inuu helo dad raaxsan oo asaga ku taxan oo ammaana oo dhaqamadiisa iyo waxyaaluhu soo gelinaya commenti ka bixiya oo muxuu ahaayey uu ka helo waxoogaa magac ka helo waxa ugu badan ee laga raadiyo taas waaye middaasina xaqiiqadu waxay tahay caruur yaryar iska badaayay iyo wax magarad iska badaayay xataa culimadii iyo dadkii aqoonta lahaabaa ku rogmaday magaca raadis iyo dadku raacsan raadi iyo muxuu ahaay kuu sacabiyo raadi iyo dadku ha kugu soo xidhmeen iyo ha lagu ammaano waa tii nebigu sheegay sal alla alay wasalam inay qoorgooyo tahayba waaba qoorgooyaba iyada dhanba xadiidkii nebiga sal alla alay wasalam waa kii abubakra xadiidku warinaya abubakra bukhaari muslim soo saareen nebiga sal alla alay wasalam agtiisa nin baa nin ku ammaanay markaasuu nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam kii wax ammaanay buu nebigu wuxuu ku yidhi waylaka qatacta cunuqa saaxibika war habaar qabe saaxiibkaa luquntiisii baad goysay luquntaad ka jirta maxaa laga wadaa ruuxan aada hortiisa ku ammaanayso ammaantaasi waxay gaadhsiinaysaa inuu iscajabiyo oo wuxuusan ahayn ismoodo oo isbuunbuuniyo iscajabintaasi hadday ku dhacdana sida nebigu sheegay waa halaagsamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka meel dadkii caqliga lahaa ku halaagsameen oo culimo ku halaagsantay oo waxgarad ku halaagsamay caruur yaryar markay ku daadato oo ay ka raadiyaan magac iyo dad muxuu ahay raacsan iyo ammaan ay ka raadiyaan waad garan kartaa natiijadu inay tahay dadkaasi inay halaag ku dambaynayaan waana natiijo xatmi ah weeye oo arrintaa ka dhalato haddaan u imaado oon ka jawaabo su-aasha ah dhallinyaradeenna rag iyo dumarba wiilal iyo gabdhaba markay isticmaalayaan social mediaha ama baraha bulshadu ku kulanto qaybaheeda kala gedisan xagay u socdaan maxay ku dambaynayaan si kooban haddaan uga jawaabo daraasada laga sameeyey oo ay isugu tageen culimada cilmu nafsiga culimada culumta bulshada iyo ijtimaaca culimada tarbiyada in alle intii aqoon lahayd ay isugu tageen daraasada ay ka sameeyeen waxay leeyihiin waxa laga dhaxlo oo khaasatan daa'irtu ka dhaxashay waa qodobada soo socda waxay ku dambeeyaanna waa sida kow waxa weeyaan alcuzla alijtimaaciya waxay dhahaan cuzla ijtimaaciya waxaa la yidhaahdaa bimacnaa ruuxii bulshadii uu la noolaa waa ka go-an yahay ummado kaluu ku dhex jiraa guriguu kula joogaa waa wiilkaagii waa gabadhaadii waa inantaadii laakiin dadka guriga la nool iyo bulshada na nool shaqo kuma laha shaashadaasuu yuu dul joogaa telefoonkaasuu ku mashquulay smart foonkaasuu ku mashquulsan yahay mawjadahaasuu kaluu ku jiraa dadkiisii marka waa ka go-an yahay inuu ruuxu dadkii uu la noolaa ka go-naado oo uun shaashadaa uu la noolaadana cudurro badan baa ka dhasha waxaa ka mid a waa madiica lilwaqti waالطaaqa waqti lumis iyo awooddii ruuxu uu wax ku qabsan lahaa oo lumaysa wey lianna muddada dheer ee ruuxu shaashada uu hor fadhiyo ama hor taagan yahay ama maqticii sawirka ahaa videoga ahaayee uu gelin lahaa uu ku mashquulsan yahay sida dhallinyaradeenna aad arkayso meelaha
gaadhanada iyo meelaha greenka iyo meelahaas aad arkaysaa iyagoo wareegayo koox oo aad moodayso sidii wax waalan oo kale war dadkan maxay raadinayaan maxay baadi goobayaan waxa la leeyahay maqtac sawiro waxay iska qaadi rabaan ay TikTok ku tuuraan waas ay soo wareegayaan oo sidii wax waashay oo kale marka yani waxa way waa maray hor fadhiyaan iyo mar ay doonayaan inay videogii ay gelin lahaayeen ay geliyaan ay qaadaan oo qabtaan way macna marka waqtigii lun taaqadii iyo bini aadamka maskaxdiisii iyo awoodii ilaahay geliyayna waa lumiyeen sidaas daraadeed kii wax baran lahaa waqtigu wax ku baran lahaa waa lumiyay hadduu diin baran lahaa iyo hadduu adduun baran lahaaba kii mustaqbal samaysan lahaa mustaqbalkii uu samaysan lahaa halkan uu ku lumiyay waxna kama faa'iidin sawir adoo isruuxayo dabada waraariyahayo shafka waraariyahayo qaad oo geli mal faa'iida waa biduuni natiija maanta dhan ku dhex jiro muxuu ahaay dhex wareeg mal faa'iida ma fi faa'iida wax faa'iido uu ka goostayna male wixii mustaqbalkiisa uu tabcan lahaa ama faa'iide uu keeni lahaana haday cilmi tahay iyo haday shaqo tahayna waa dayacaya waxa kamida natiijada ay da'yarteen ku socoto ama in badan ay gaadheen al-uri wa da'ara qaawani iyo dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo maxaa yeelay si gabadhan ama inantan ama wiilkan dhalinyaradii uu helo custom u helo si jumhuurta iyo dadka uu soo jiito waa inuu wixii uu ku soo jiidan lahaa meesha geeyo waa inay gabadhu markay isqaawiso oo shafkeeda banaanka dhigto oo mafaatiin jirkeeda banaanka dhigto oo marka qaarkood dhar ka dhigato oo marka qaarkood ay muxuu ahay dhar khafiif soo xidhato oo ay dadkii say u soo jiidan lahayd jumhuurta u kasban lahayd ay samayso sidaas daraadeed bimacnaa waxa weeye isqaawinta iyo muxuu ahaayey akhlaaq xumada iyo dacaarada iyo qashinkaas ayadana waxa weeye khaasatan gabdhaha iyo da'yarta gabdhaha ah waa mid iyadana kadibna waxa baaba'aya meesha ka baxaya dhaxalkii diineed dhaxalkii thaqaafiga ahaa dhaxalkii akhlaaqiga ahaa xishoodkii culimada ka hadli doonta anshixii wixii uu mujtamacaadka muslimkii ay dhaxleen oo diintoodana ku soo degtay awow iyo abna ay ka dhaxleen oo dhan baa marka la burburinaya oo waxa burburinaya muxuu ahaayay arintaasaa burburinaysa waxa kamida oo dhalinyarada ay ku socdaan social media haasi markii ay si miir la'aan u isticmaalayaan in badan oo iyaga kamida inay ku dhacdo cuduradan nafsiga ah iktiaabka isla hadalka stresska qaarkood xataa inay isdilaan waxaana keenaya hadafka markuu noqdo ama TikTok aad u galayso ama aad u galayso muxuu ahaayay manasaadkan aad u galayso waxaad u galaysaa inaad xaqiijiso inaad dad badan hesho haddii marka wixii aad rabtay aad xaqiijin kari weydo dadka qaar baa marka dambe jiranaya markay jiradaanna nafsiyan ay u jiradaanna waxay keenaysaa natiijadu inay iskaarijiyaan taqariirta laga qoray in badan oo da'yarta kamida inay isdilaan oo iskaarijiyaan waxa keenaya calashaani wuxuu gaari kari waayay meesha uu socday gabadhii waxay gaari kari wayday meesha uu socday marka cudurraa ka dhashay cudurro nafsi ay ka hadlayaan culimada culumta psychology-ga ama culumta nafsiga ay aad uga hadlayaan ayaa da'yartu ka qaadaan waxa kamida يعني أغانيده هسها محو هاي أنت بدن هي موسيقى كل مان محو هاي مقاطع ذا صور ذا فيديو أنت بدن وحال الصعدة محو أما هس أما موسيقى أما وحب الله الصعدة موسيقى هس ترى وحي كهل ليس وحي قشنا يعني وحي كهل ليس جرائم والمركز قاركود وحي كهل ليس ماندوريات marmarka qaarkood waxay ka hadlaysaa jaraa'imta wax dilka marmarka qaarkood waxay ka hadlaysaa khaniisiinta iyo dadkan qashinka ah ya macnaha gabadhii muslimada ahayd intay soo qaadatay heestii iyo muusigiiba iyadu waxay ku dartay inay isruuxdo Soomaa inay dabada waraareedo shabka garaacdo inta bay ku dartay laakiin waxan kada meesha ka shanqarayaay waa qashin marmarka qaarkood waa ilhaad iyo gaalnimo cad waay
gaalnimo cad iyo ilxaad baa heestu ku saabsan tahay oo muusigani ku saabsan yahay marka waxaasoo dhan ayaa ku jira waxaa ka mid a dhalinyaradu meesha ay u socdaan iyo waxay kala kulmayaan waxaa ka mid a altacaruf cala altabaqa almuhamasha min almujtamac bulshada bini aadamka gaalkeeda iyo muslimkeedaba waxaa ku jira in liidato oo aada u hooseysa meeshan waxaa isugu yimaado social mediaha soo gala bini aadamka intoodii liitayna way ku jiraan wiilkan dhallinyaradii gabadhan dhallinyarada marka waxay baranaysaa dadka isbedelay oo ragga ahaan jiro dumarka iska dhigay kuwii dumarka ahaayoo ragga iska dhigay khaniisiinta qashinka ah wax alla waxaasoo dhan oo meeshan ka buuxa buu ilmihii la saaxiibaya waxoodii buu dhegaysanayaa commentigoodii buu arkayaa sawiradoodii buu arkayaa mabaadidoodii bay sharxayaan akhlaaqdoodii bay soo bandhigayaan waxaasoo dhan buu marka ilmihii wax ka gurubsanayaa oo wax ka urursanaya qisooyinkoodii bay ka warramayaan kadibna ilmahani markii horeba khalfiyana ma lahayn waxna ma garanayn waxna ma kala saari karine siduu ugu dayan lahaayo iyagoo kale u noqon lahaa buu isku dayaya ilan meeshaasaa wax laga qaataayo ilmihii laga tawjiihiyaa waxaa ka mid a maalan social mediaha khaasa tiktok iyo wixii la mida waxaa loogu tagaa cay waxa la yidhaahdo oo dhan meelay ku timaado halkaasaa loogu tagaa caytan iyo afxumo noocyadeeda kala gedisan haddaad china wax ku caayi rabto halkaasay taalla haddaad af soomaaliya wax ku caayi rabto halkaasay taalla haddaad ingiriis wax ku caayi rabto halkaasay taalla cayda noocay ku timaadadii afxumo oo dhan bay carruurtu meesha ka bartaan war soo saas ma ah anugu hadda kuma jiro ogaada tiktok kuma jiro warwadaadka waxaanu sharcay bisaa ku jiraan anigu kuma jiro maran galo laakiin wax bannaanka yaallo waaye ya haddaad wixii laga qoray akhrido haddaad dadka la sheekaysato kulli waa wax la ogaan karayo oo iska cad waxaa ka mid ah oo halis ah oo aada iyo aada khatar u ah bayaanaadkan iyo macluumaadkaaga aada meesha gelinayso tiktok waxay ka iibsataa kambaniyada doonaya in wax loo xayeysiiyo adiga markaad mushaarig noqoto ood qeyb ka noqoto beledkaad joogto waddankaad joogto internetkaaga cinwaankiisa smartphonekaad isticmaalaysa ama muxuu ahaay laptopkaad isticmaalayso meeshaad joogto cimrigaagu intuu yahay kulli macluumaadkaaga kaamilkeed bixisay macluumaadkaas sidooda iyagoo ah tiktok waxay ka iibsanaysaayoo ay siinaysaa kambaniyada waxayeysiiya sidaas daraaddeed adiga dhan makshuuf baa tahay waxba kuuma qarsoona dhankaa marka laga fiiriyo waxay leeyihiin culimmadu waa barnaamij loogu talagalay tajasus iyo jaajuusnimo loogu talagalay waayo dowladahana isticmaala caadatan macnaheedu waxa weeye waana meesha tiktok ay ka hesho lacagta ka hesho waxaan bilaash ma aha 3 sane ugu horreysay ayaa qolyaha tiktok samaystay waxay ka heleen 1 bilyan iyo badh dollar bay ka heleen xaggee keenay lacagtaas idinka akhlaaqdiina iyo diintiina la burburinayaa laga sameeyey marka macluumaadkaaga shakhsiga ah ee khaaska ku ah bannaanka yaallaan ummado kale gacanta ugu jira waana waxyaalaha laga dadaalay ka mid tahay oo la ilaashado waxaa ka mid ah oon ku gabagabaynayaa wakhtigii ka badan baan qaatay social mediahan waxaa loogu talagalay dadka in maskaxda lagaga duulo oo maskaxda laga gumaysto ilmahan soomaaliga ah ee halka nairobi nala jooga ama soomaaliya jooga ama qurbaha jooga ama baadiyahaba joogaay mujtamaca uu dhex joogo maskaxdiisii ma laha fikirkii mujtamaca ma laha akhlaaqdii mujtamaca ma laha diintii mujtamaca ma laha ilmahan maskaxdiisa qolofkiisii baa nala jooga laakiin maskaxdiisa ummado kala haystaa waana tii hadda ka hor wasaaisha kale loo mari jiray laakiin hadda ay fududaatay in internetka loo mariyo brograamyadiisa sidaas daraaddeed da-yarteennii iyo caruurteennii iyo dhallinyaradeenii maskaxdoodii waaba la haystaabaa qolofkoodu muxuu ina tari marka
yaa qolofkooda masaajidku inoogu dhex jiraa oo meelihii waxbarashadu dhex jooga laakiin waxba tari maayo maskaxdooda ummado kala haysto say doonaan ka yeelo waxay doonaan ku shuba waxay doonaanna ka shuba marka halista uu leeyahay iyo caruurtan iyo daa'irtani meeshay ku socdaan waa meel halisa waxaa ka cabaaday caalamka intii waxgarad ahayd oo dhan baa ka cabaadaysa gaal iyo muslimba culimada cilmi nafsiga culimada cilmiga ijtimaaca iyo bulshada culimada tarbiyada culimadii diinta iyo akhlaaqda waxgaradkii kulli baa laga cabaadaya natiijada ugu dambaysa waxa weeye in isleeyahay uu ina dhaxal siin doonaa in uu soo saaro internetka iyo programyadiisu haddii aan si wacyile loo gelin oo aan la is ilaalinin oo aan la taxadarin natiijada ugu dambaysa waxa weeyaan inuu soo saaro da'yar iyo dhalinyaro mamsuukhiin ah oo aan diinna gacan ku haynin adduunna aan gacan ku haynin aakharana aan gacan ku haynin khulaasada ugu dambaysiiyo natiijada haddii la yidhaahdo ilaa ayn natiijadu halkaas waay maxaa inala gudboon marka aafadaa ina haysata culimmadaan uga bixi doonaa insha allahu tacaala maxaa inagala gudboon qaybo kaleeto oon gaabiyeyn iyagaa ka hadli doona insha allahu tacaala ilaahay towfiiqda hayna waafajiya allahna ina xifdiyo daa'irta iyo dhallinyaradana khaasatan rag iyo dumarba wiilal iyo gabdhaba allah inoo xifdiyo fitankan allah inaga ilaaliyo hada billahi towfiiq sala allahuma wasallam wbaaraka calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi wasallam